بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا شرفت ميل والبواد جوجتان مركو هوري وحان idinku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan idin rajeynayaa meel kasta oo joogtaan inuu waqtigu idin wacnaado haddaad habeen joogtaan habeen wanaagsan haddaad maalin joogtaan maalin wanaagsan haddaad subax joogtaan subax wanaagsan ayaan idin leeyahay meel kasta oo joogtaan kulankeena maanta ma aha kulan aan ku sii talagalay waqti hore wuxuu ahaa kulan kugu soo boodaya oo aan u arkay inaan iga fursanaynin in aan waqtigan xaadirka aan wax ka iraahdo xaaladaha ka taagan geeska Afrika guud ahaantii gaar ahaan geeyiga ismaamulka Soomaalida xaaladahan ka soo cusboonaaday marka waxaan jeclaystay in aan saddex qodob aan si kooban uga hadla mid walba gaarkiisa ONLF iyo isbedelka muxuu ahaa ay samaysay iyo waqtigan xaadirka waxa la gudboon inaan qodob ka iraahdo shacabka Soomaalida ogaadeen iyo ku nool waxa la gudboon xaaladan la jooga inaan qodob ka iraahdo qodobka kale inaan baaq kooban u jeediyo maamulka madaxweyne Mustafa Maxamed Umar haddii aan ku horeeyo qodobka koobaad oo ku saabsan ONLF waxaan jeclahay inuu clipku aad brief u noqdo oo inuu daba dheeraado qorshe ima aha haddii aan qodobka ku horeeyo ONLF iskaga sheekayn mayna taariikhdii ay soo martay iyo marxaladii kala duwanaa iyo shacabkan wixii dib iyo halgan iyo xaalad uu soo maray waxaynu xaaliyan iskaga sheekaynayno ma ay aha hase ahaatee waxaan jeclahay inaan shacabka la wadaago hal qodob wada walba meel ay ku dhamaato waxay soo socotaba ayay leedahay ONLF isku day kasto ay soo samaysay iyo halgan kasto ay soo gashay iyo marxalad kasto ay soo martay waxbay ku soo dhamaatay hogaaminta maanta jirtana waxaan ugu bogaadinayaa inay cala aqal maanta ay hal wado ama hal irid in ay soo xireen waxay ku soo dhamaadeen oo ay gabagabadii ay noqotay in ay soo xiraan sayladii ka furnayd geeska Afrika qarnigan 21aad ee bini aadmiga laga ganacsanayay waxay ku guuleysteen in ay soo xireen jeelkii bulshada loogu magac daray jeel ogaadeen la baxay inay soo xiraan way ku guuleysteen inta wixii ka soo haray ee kale in ay dadkii taageere iyo wixii u ahay magacooda lagu dhibayay ee lagu barakicinayay ee lagu xidhayayna waxay u ogolaadeen in ay si nabadgelyo geeska Afrika meeshii ka qaada dalkooda hooyay dibadiisa inta ka dhaxlay inay ku noolaadaan sidaa darteed waxaan jeclahay xubnihii iyo madaxdii iyo taageerayaashii iyo ciidankii ururkaas oo aniguba aan ka mid ahaa inay hal qodob ku qancaan oo qaataan waxa weeye good tribe ahayd isku day wanaagsan bay ahayd isku daygaasi wuu soo dhamaaday sidaa darteed in aynan sii soconin wax suurto gelin kara in xaaladdu ay halkeedii dib ugu laabato oo ay noqoto in ay inay xaaladii dib ugu noqoto wadadeedii waxyaabaha calaamadaha noocaas ee suurtagalka ka dhigi kara inay ku noqoto in la joojiyo oo ay ka mid tahay caadifada iyo xamaasadda iyo calanka iyo ONLF waa xisbi ka mid ah axsaabta ka jirta Ethiopia kililadeeda kala duwan kililka Soomaalida xisbi ka jira oo siyaasiya weey xisbiga xaakimka hadda deegaanka joogay la mid yihiin kuwa abuurmi doona ayay la mid yihiin sidaa darteed in caadifad iyo durbaan iyo calan iyo buuq iyo sawaxan badan oo kale oo suurto gelin kara inuu abuuro xasaasiyad xaaladdu in meeshii laga soo dhaadhiciyo buurti dib ugu noqoto arinta in laga waantoobo ayaan ugu baaqaya shacabka Soomaalida ogaadaya deegaanka ku nool qodobka waa inaan raalli hada walaalayaal telefoon baa soo qasay ina kala jaray raalli hada marka waxaan ugu sheegayaa taageerayaasha iyo xubnihii ciidan ha noqdo xubin ha noqdo muxuu ahaa taageero guud ha noqdo qof kasta oo ka tirsanaa ururkii ONLF waa inuu qaato inuu yahay shakhsi ka mid ah shacabkaas ururkuna uusan xamaasad dambe iyo dagaal dambe iyo sawaxan dambe midna inaysan ka sii jirin arinta ayada qodobka inaan isla qaadano oo aan yareyno ciidan abaabulkii iyo calan la orodkii iyo durbaan tubkii iyo tuhun abuurka noocaasa that is history arinta iyada waa inaan ku wada qancano oo isla qaadano oo gabi ahaan arintaasi ay dhamaato shacabkeena intii shahiid Allah u naxariisto
ninkii aabihii ku shahiiday sharaf buu leeyahay aabihiina shahaadada allah u aqbalo ku walaalkii ku shahiiday shahaadadiisa allah u aqbalo kay walaashii ku shahiiday shahaadadiisa allah u aqbalo kii ku dhaawacmay allah u booga dhigo wixii ka soo hara waa historiya taariikh waa inaa ruux walba ku qanco oo uu qaato in muxuu ahaa gudoomiye urur iyo xogaye guud oo urur iyo afhayeen urur midna inuu idaacadaha intaa idinka dhaho necessary ma aha qof walba waa inuu wixigaa ku qanco maanta marka sidaa darteed ururkaasi sida uu xogayaheedu sheegay waa urur ka mid ah xisbiyada siyaasiga ee wadanka ka jira durbaan dambe iyo cashi wax dambe oo la isu garaacayo wixii ma jiro waa inaan marka ka shaqeyno nabadda aan ka shaqeyno inayna dib buurti u noqonin ciidan baan qoranayaa calan baan la ordayaa waan heesayaa xisbi siyaasi aan noqonaya contradiction weeyaan waa waxyaabo duruufo iska hor imaanaya marka sidaa darteed duruufahaas inaysan iska hor imanin oo aysan xaaladaasi wixin waaqaca in la qaato ninkay u macaantay iyo ninkay u kharaadhahay qodobka qodob weey qodobka labaad shacbiga ku nool deegaanka waxa weeye waa shacab hal adayg badan oo geesiya oo soo halgamay waxaad u soo halgamayseen meeshaad ku taageeri lahaydeen ugu dambeysay waa taagantiin waxa weeye waxa aad taageeraysaan waa in maamulka deegaanka ka jira ee madaxweyne Mustafa Maxamed Umar uu madaxweynuhu ka yahay guda iyo dibadba shacab iyo wixiba cid walba oo naf iyo maal u huri jirtay oonalaf waa inay maamulka u hurto weeye maanta oo maanta maamulka ay difaacdo oo ay garab istaagto jiritaankiisa garab istaagto madaxtinimadiisa garab istaagto sumcadiisa garab istaagto dacaayadiisa la dagaalanto afku difaacdo adinku difaacdo oo garab istaagto weeye waxa inagu soo haray that is all waxa weeye gobonimo doonkii iyo ururkii iyo qadiyadii aan u soo olooleynay way dhamaatay halkaas ay ku dhamaatay waxaan leeyahay ma dhaliilayo madaxdii qaadatay go'aankaas waan ugu hambalyeynaya kuma dhaliilayo waxaana kamid ahaa madaxdii ururka ee ku boorinaysay in go'aanka la qaataan maxaa yeelay macno dhiiga shacabka iyaga loogu kornoolaado dadkanaguna ay cantala u ahaadaan maba jirin gabi ahaanba madaxdii go'aanka qaadatay sharaf bay ku leeyihiin waxa weeye nin dameer dabadii ka degay meel u dhaantuu waayay bay Soomaalidu ku mahmaada mar haday sidaas tahay halkaas xal la mooday halka hadii la mooday waa inaan halkiisi lagu celinin shacabkuna waxba inay isjahwareerin shacabku xukuumadda deegaanka ha ku daba faylaan madaxdeena iyo madaxweynaheenu waa Maxamed Mustafa Umar iyo kabinetkiisa wixii cadowgiisa cadow inoo ah wixii uu taageero iyo hiil iyo hooba u baahayay inaan la garab istaagno weeyaan qodobka ugu dambeeya oo aan jecelahay inaan baaqan ku daro waxa weeye maamulka uu madaxweynaha ka yahay Mustafa Maxamed Umar ayaan hal qodob isagana oranaya madaxweynaha waxa weeye jireeca faraha badan iyo dhaga adayga labaduba khasaare iyo dhibaatay leeyihiin dadkan ku nool wadanka Itoobiya ku wada nool ee qoomiyadaha kala duwan ee midabka wadaaga waxa weeye qoomiyad maanta deegaankeeda qoomiyad kale ay degan tahay oo awood ku leedahay mid muuqatay mid qarsoontoona oo ahayn meesha la yiraahdo jigjiga ma ay jirto waxa weeye qof oramay ama tikre iska daa Soomaali oo kililka axmaarada laga helaa ma jiro mid laga helo gobolka oramada laga helana ma jiro ruuxi laga helana waa wixii sidaa darteed waxaan kugu baaqayaa magaalada jigjiga iyo wadanka gabi ahaantii qoomiyadda axmaaradu waxay ku leedahay oramada iyo waxaan waa sheeko qoomiyadda axmaaradu waxay ku leedahay saameynta ugu faraha badan dhulkaan ugu ma tagin laakiin xogteeda ayaan si buuxda oo aad waliba daqiiqo ah yaanu hayaa waxaan haynaa in arkiifyada iyo shaqooyinka technocratka ee wax la qorqore ee hoose oo dhan nimanka inay gacanta ku hayaan waxaan ognahay inay hayaan waxyaabaha muhiimka u ah men heer tuula ilaa iyo heer gobol sida korontada biyaha adeega bulshada oo dhan inay gacanta ku hayaan inaad maamulkaaga hoos u fiiriso oo dadkaagan siyaasadda iyo xilalka sare iyo ciidanka iyo amniga iyo waxa ku mashquulsan in dad technocrat oo hawsha gacanta ku qabto oo qabta in la helo inaad hawshii aan lagugu samaynin saab lugta uun kuugu jiro oo aad busy uun ku ahaato kabinetkaaga iyo muxuu ahaa iyo xisbigaaguna aad mashquul ku noqoneen inaad shaqada dhaqaajiso oo muxuu ahaa heer degmo ilaa iyo heer gobol shaqooyinku ay dhaqaaqaan oo si rasmi ah u dhaqaaqaan in dib eegis lagu sameeyo dhammaan mashaariicdii ay wadanka ka fulinayeen gaar ahaan mashaariicda loogu magac daray mashaariicda horumarinta ee ay tikreegu naqshadeeyeen ee maamulkii ka horeeyay inay fuliyaan loogu talagalay ee aan aaminsan
aaminsanahay inay ujeedkiisu ahayd burburinta shacabka noloshiisa iyo dhaqaalihiisa ee tuulooyinku ka midka yihiin ee magaaleynta waxaan ay ugu yeedheen ka midka yihiin ee dibudejinta reer miyiga waxay ugu yeedheen ka midka yihiin ee mashaariicda dhiraynta iyo biyo xidheennada ay ugu yeedheen ka mid yihiin biyo xidheennada waxaasoo dhan waxay u baahan tahay in saameyntooda xun iyo tooda fiicanba la daraaseeyo ayay u baahan tahay meelihii laagihii iyo togagii beeraha lagu tabcanayay ayaa meeshii ay ku butaacayeen laga leexinaya waa dadku sayna wax u tabcanin weeyaan dadkii xoolahooda dhaqanayay baa laleeyahay qol iyo fadhi baa lagu sameeyno noloshoodii laga soo tirtiraya sidaa darteed waxaan kuugu baaqayaa in mashaariicda horumarineedna dib loo fiiriyo shaqooyinkii iyo wixigiina la dhaqaajiyo maamulkana gacan bira lagu qabto istaraatiijiyadda iyo qorshahagana aad ku darsato sidii dadkan highlanderka ahee wadanka ku nool sidii shaqadu ay dadka localkii ogala wareegi lahaayeen dadkan gacmaha dhuunta kula jira sidii farsamada iyo shaqada loo bari lahaa shaqadana u qaban lahaayeen mushaarka wiilka axmaarka ku qanacsan yahay uu ku shaqaynayana loogu qancin lahaa isagoo wadankiisa u shaqaynaya inuu ku qanco oo waxaan ugu dambeyntii kuu jeedinayaa adiga iyo shacabkaaguba shacabku inay ku garab taagan yihiin ku jecel yihiin jacaylkooda iyo garab taagnida ay ku garab taagan yihiin inaad ka faa'iidaysatid wax allaala wixii burburka iyo dhibaatada kuugu wada inaad la taliyaashaada hoos u fiirisid qaar badan oo la taliya ku ahayn laakiin awooddaada inay ku tagrafalayaan ay dhacaysa ayaa jira ururo siyaasi oo si hoose biyaha hoostooda ururo kale ugala dagaalamaya ku jira taladooda inaad qaadanaysidna laga yaabo adoon kulaba talinaynin iyagu ay iskood u tashanayaan oo talo xumaysanayaan ay dhici karto inaad hawshaas si baaxad leh aad u fiiriso baaqa ugu dambeeya oon horena u jeediyay haddana soo celinayo waxaa weeye hantida maanta shacabka soomaalida deegaanka ka dhaxaysa waa maamulka meesha ka dhisan weeye xisbi ma aha urur ma aha wixi ma aha maxamed cumar cismaan madaxweynihiisu mustafa maxamed cumar weeyaan madaxweynahayguna mustafa maxamed cumar weeye gabdhaha reer ogaadayana madaxweynahoodu waa mustafa maxamed cumar weeye marka in madaxweynaha la garab istaago waxa weeye raganimadu midda kugu jirta waa midda ku garab taagan isaguna inuu sidaa u aqbalo cid walba oo soo hujuunta inay saa noqoto shacabka Soomaaliyeed waxa weeye hadii halgan la galay hiilkiina waa aragnay hadii nabad la galay hiilkiina aragna nabadda u shaqeeya wixii xuduudada ka soo talaabaya fadqala la wada qabta saad kuwii hore u qabanayseen iyaga oo dulman aad u qabanayseen kuwa fadqalada wada soo talaabaya argagixisada inaad qabataan oo soo sheegtaan weey amniga laga wada qayb qaato weey law caalan dambe oo lala ordo iyo dhaanta dambe oo lala ordo iyo durbaan lala ordo iyo wixiga iyo zaxmada iyo wixigaasna gebi ahaanba qofkii wadani ee wadanka la jecel ka hayso caalanka sida guriyahanaga ugu sharaxan yahay guriyihiina ugu sharaxda ugu xidha waxa weeye wadanka waa in nabadgelyadiisa laga shaqeeyo ruuxii wada calan la maraya calanka dawlad deegaanka Soomaalida ee quruxda badan ee sharciga la isku waafaqsan yahay horena sharciga u ah kaasa calan oo qaata oo badada ku mara oo ku xaragooda oo dawladda taageera oo madaxweynaha taageera baaqan idin jeedinaya waa kaas aad baan idin salaamaya boqolkiiba 200 oo jeer waadna mahadsantihiin saad ii dhageysateen inaad sii gaarsiisaan oo fariintayda gudubtana waa idin ka codsanaya wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh